كإما حرد كان بعص waxaan dib ugu soo laabtay wadankayga hooyo waxaan ahay primary xagga aan ka soo tagay standard haddana waxaan ka bilaabay secondary form 1 waxaan sidii aan u maleynay sidii aan u maleynay ma naqan laakiin ma u maleynay inaan ka helay waxbarasho si aad u fiican sida xagga camal laakiin waan helay sida aan rabay waxbarashada anta wala isma dheen markaan Kenya joogay Kismaayo aad kelisa iskuul fiican oo u qalma iskuulaadka Kenya laakiin way suurto gashay inaan waxbarashada dib u wato si wanaagsan ayaan wax bartay macallimiinta joogtana way fiican yihiin dadaal dheeraad ah inuu siiyaan ma ahayn wax la filan karay in sheeko noocan ah laga heli karo dad ka soo laabtay xeryaha qaxootiga oo ay waayo ku noolaayeen xilli dad fara badan ay sawiranayaan muuqaalataasi ka bedelan oo dhammaantood ay ka walwalsanaayeen dalka lagu celinayo oo aysan nabadiisa ku taagnayn caga buuran heshiis dhex maray hay'adda Masikoob iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulayaasha iskuulada heshiiskaas waxa uu dhigayay in ardayda qaxootiga ah ka imaanayso qaxootiyada muxuu ahaa fiiga ka bixiso 60% hay'adda Masikoob 40 kalena ay kabaan iskuulada nolosha xaggan ku haysan nololka macaan ku haysan qoso inta waa wadankanaga waxa weeye xagga Uhuru Kenyatta wuxuu dhijir qaxootiga naga baxa qaxootiga saanaga yar laakiin wadankeena aan joogna lagama rabo wax kibaanda wax wada ku mara meesha arma mari karnaa meesha arma ka soo noqon karnaa anaga isku taalan laakiin xagga waxay meel nolol talnaa xaraan ku ornaa sida ariyo kala hada laakiin Fred dhamayaan hay ilaa 500 oo guri ayaa waxa laga hirgeliyay inta u dhaxaysa deegaanka Aqasacmooye iyo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose isla markaana xarun ku meel gaar u ah dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland guryahan ayaa waxa la sheegay inay degi doonaan amaba loogu talagalay dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ee dib uga soo noqonaya deegaanada Faafi iyo Dhadhaab gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya qoyskiina waxa loogu talagalay sida naloo sheegay inay ka heli doonaan hal guri sidoo kalena deegaankan laga hirgelin doono goobo caafimaad iyo goobo wax lagu barto kuwaas oo asaasi u ah nolosha aadanaha iyo guud ahaanba dadka halkan degi doona waxa soo laabtay ilaa dad 40 ku gaaraya waxayna ku soo noqdeen deegaanada marka anagu aan ka hadalno deegaanka Jubbaland magaalooyinka Kismaayo oo 180 ah iyo magaalada Luuq hadda way ku socdaan way station kala rajeynayna inaanu via xawa ka furno xog budad ku socda wana dad isoo laabanay